بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مركز waxaan salaamayaa awalan maayarka duqa degmada gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda Nugaal maamulaha secondary Muuse Yuusuf iyo maamul ku-xigeenka Saleebaan iyo dhamaantiin odayaasha jooga meesha Cali imika naga joogay kamaniga Telesom ka soo qaybgalayaasha iyo runtii ragga dhalinyarada ahay oo kacay hawshan barnaamijkan computer labka Muuse Yuusuf Secondary School inuu sameeyo dhamaantii waxaan ku salaamaynaa islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullu xilata hadal badan ma harin horta marka aan taa dawladda ku horeeyo wixii horumara maayarka noo qaabilsan waa inta uu idin ka sheekeeyay runtii iyo waxyaabo far badan oo kale oo isagu intii tacliinta uu idin sheegay runtii waxa wax kasto waxbarashadu leedahay runtii dawladdu miisaan weyn bay ka qaadataa jaamacadda kamid gudoomiye jaamacadda la fadhiyaayo hadda waa mashruuc weyn baa u socdo loo sameeyay iyadana dalka labad la saarayo insha Allah horena dhulka dawladda u bixisay dhismaha dawladda u dhistay dadkeenuna runtii qurxinteeda iyo tacliinteeda iyo horumarinteeda waa ka qayb qaateen isaguna dibadda uga soo noqday isku tashigaas ku timid sidii loo furay secondary Muuse Yuusufna waxa ka sheekeeyay maamule Cabdullaahi Flaar oo runtii way badan u soo taagnaa waxaan ma la taasana furan yahay 17 dafcadood baa ka baxay waxa Ilaahay loogu mahad celiyo runtii insha Allah taala ana xusuus gaar igu leedahay galaaskan aan taaganahay Salmaan uu joogay waxay ahayd kii aan imtixaankii secondary-ga form 4 aan ku galnay nin leeyahay 144 ayaa waday maalintii aniga nin Cabdiqani Fooxle la yiraahdo iyo nin Cabdiqaar la gar halkaas aan taagnayno saddex su'aalood buu weydiiyay maxaa rabtaan buu nagu yiri moogta anigu Ilaahay baafka igu tiro askari waxaan rabaa inaan siyaasadda galo waan moogta Cabdiqani wuxuu yiri waxaan rabaa inaan aqoon-yahan noqdo dadka wax badan u kordhiya aqoon-yahanka waa noqdo maanta waa rag ugu aqoonta badan dalka Cabdifaal wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan noqdo dadka diyaaradaha sameeya waxaan ma taa Mareykanku joogayo diyaaradii waa ka sugaday isagana halkaas aan fadhino Cabdiqani halka ugu dambeeyay fadhiyo anigu halkan horaan fadhiyay runtii ninka Cabdiqani buu noo galay dafada tuugursiga ka baxday ahayd isaga ugu sareeyay Cabdiqani Fooxle oo number oo wuxuu ahaa ardaygii ugu sareeyay markii dafadii baxday boqolkiiba 75 ardaydu way baastay runtii imtixaankaas GC buu ahaa imtixaanka ugu adkaa buu ahaa Nairobi lagu soo sameeyay dad cadaan sameeyay Afrikaan ma sameyn intaan African Education Trust la sameyn bay ahayd oo la soo dadajin bay ahayd cadaan baa sameeyay waan garanay 144 baa siday qofna qof lama fadhiisanayno waxa la soo jirsanay saddex talaabo si dadka loo kala reebo runtii si wanaag aad horta waxaan ugu mahad celinayaa Saleebaan qarbaxay nala jooga oo runtii ragga culays weyn buu ku lahaa diyaar garowgoodii inaan raggaas ay baasaano runtii waxa wax weyn ahayd in la baaso runtii waqtiga oo dhulka dhammaan Soomaaliland oo dhan ama aan dhaahdo ilaa Puntland intaas oo dhan way yareed ardada xilliga ka gudubta imtixaanka aad buu yareed imika laakiin waxa lagu saleeyaa basic aqoontooda iyo aqligooda lagu saleeyaa laakiin marka ay kuyigu ka sareeyay ka runtii dhammaan welina oday waa joogan ragii intaas inta badan Cabdullaahi Mawlid Camar soo gaarsiiyay iskuulka maamulkiisa Salwaana ilaa maalintii qobay qaado waa taagna furitaankeedina waa joogay waxaan doon raggan si gaar ugu mahad celin runtii shaqo weyn bay noo soo qabteen halkaan iyaga soo gaarsiiyay iskuulka adduunkana isku tashiga horta wax qaaliya haddii bulshadu ay isku tashato oo ayagu wax qabsato wax badan bay qabsan kartaa waxaan maanayaa Cabdikariin ololba maalintii la joogay 2017kii July bishan oo kale heshan laatakeedii madrasad baan furnay aniga isaga hadda joognay meesha islaan eedadayaal ilaa kharasi Ingiriiska joogta ayaa dhistay meesha 22 wiil baan ku soo xareynay baadiyaan ka keenay meel leeyahay qorle iyo karin dibili ma ka soo ururnay 22 wiil imika 12 kamid ah 3 sano imika dhiganayeen 12 kamid ah imika quraanka dhameysay oo community-ga masjid huda xufaada quraanka laga dhigay dadka akhriya kamid yihiin waan inama yiraahdo ka soo ururnay baahan 12 kalena dad ku shaqeysa tacliinta marka hadii saal isu kaashado cid barnaamijkaas oo kale sameyn karta waa ka caawin karnaa qaafka loo sameeyay iyo heerka dadkaas hawsha loo wado loo maamulay
dhaqaale runtii waa ku baxayeen marka wixii ragu kaco rabbina aqbal wali way rumowdaa ragan dhalinyarada hawshan runtii agaasimay dee wax ay qabteen wax intii marka dawladda laga codsaday ahayd wax hay'adaha caalami international laga codsaday ahayd laakiin maanta inaga qabsanay intaa in ka badan baa qabsan karnaa waa maxay baa leeyahay adoonnimadu iyo adoonku waa qofka waxa uu rabo aan sheegan karin baa wax kale ma cid kale adoon ma jirto qofka waxa uu rabo aan sheegan karin marka dadku hadday waxay rabaan iyagu sheegan karaan ama ka hadli karaan runtii ama qabsan karaan waxayna qabsan karin ma jirto marka runtii anu deegaankeygana waan joognaa dadkeennana waan nahay awooddii iyo dawladdiina gacantaan idinku haynaa runtii iskaashi badan baan samaynay dhaqamo hore ku jiray maamulada oo ka saarnay meesha talo in de ummadda wax loo qabto kaamaayarke baan ka shaqeynaa wax kale kama shaqeysana halka dadka u shaqeynaa xaqiiqda marka laga sababtoo ah waxaan doonaa culture-ku inuu isbedelo maamulku isbedelo in dad gaar ah wax xidhnaadaan isbedesho in community-gu ay maamulkan u sinaadaan noloshan u sinaadaan waxaan maleeyahay fikirka sir buu ku bilowday ambalaasyadu imika xagu maraya maanta dee si positive isu bedeli marka waxa haddii si positive looga faa'iidaysto aan si negative looga faa'iidaysan dee maanta waa 5 ambalaas baa afarna la iibiyey midna dadka reer Laascaanood baa iska ururiyo dhaqaalaheeda lacagteeda waa la hayaayo guddi baa ku jirto ka shaqeynayso iyaguna dhawaan ba ka sugayna waa la dirsama marka 5 ambalaas markay noo yimaadaan dee waa u tashanayna insha Allah taala saynu u galino iyo waxaan gobolka dhan ku filaanaysa inaga imika dadka caawino ergaa ma leeto gaari ku gudoomo dhowr qof ku dhimatay kuwi Laascaanood baan u dirnay calow inaga caawinay kuwiina baan u dirnay elfin marka waxay taas ku tusinaysaa iska daa in inaga cid kale sabale garayna marka ummadda hadday isku tashato nin walba waxbuu kugu caawinayaa gacmadu jir bay wax ku weeyay Soomaalidu tiraahdaa runtii wasaaradda waxbarashaduna kolley dee wasiirka waxbarashadu ballanqaadyo fara badan buu halka ka sameeyey ballanqaadyo ka sameeyey iskuulka Maayurku Seegaya oo ku jiray in iskuulka teacher training-ka halka laga dhiso oo la dhagax dhigo oo la dhiso oo runtii isagoo si fiican loo dhisay dee gobolada bariga ay wax ku bartaan hadaan meel kale xudoonin jirnay in halkan la isugu yimaado waxyaabo kale oo ballan qaado waxa kamid ah boodhanka Laascaanood inaanu xidhmin oo dhaqaalaha ku baxa wasaaraddu ay toos u wareegto iyo dawladdu waana ku khasban tahay runtii inay la wareegto cashuurta dadka laga qaado lagu bixiyo marka wixii inagu hadeen wax qabsanano runtii cidii caawinaysa ama dawladda noqoto cid kale noqotana dee diyaar ba loo yahay marka dhamaantii waxaan ku salaamayaa arrintan fikradan oo kale inaan si wadno ma rabnaa si xoojino meelaha kale oo soo gudbi